السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرفت له oo Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waa idin salaami ku soo dhawaada barnaamijkii nolosha dhabta oo inkii soo baa alkhayr education xaafadda Hayes London waanagii ka hadlayna carruurta Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhalnay inaan xuquuqdooda u soo celinno xuquuqdaas oo badan aan ka duudsiinay oo dadkeena Afrika ay ku mashquuleen walaalkay walaashay carruurtaani waa carruur aan dhalnay runtii waxaan rabnaa markaan ka dhimanno in dad ahlu tawxiida ay noqdaan diintan hor u sii wadaan marka haddii Afrika aad guri ka dhistay u kaxee carruurta insha Allah kusoo barbaaray halkaas markay soo noqdaanna inay dad diintooda fidiya inay noqdaan haddaad taa yeelayno oo yidadiilo kugu jirto walaalkay walaashay waxaan ku dhihi lahaa hantida halka Afrika ku taala soo xaraash soo gadgad carruurtaada bartaan guri ugu gado Maraykanka Yurubta Australia si markaan carruur wanaagsan oo Soomaaliyeed oo muslimiin ay u noqdaan laakiin hadda dhexda ay ka baxayaan xaggana ma jirno intana ma jirno inta markaan ka gudbo nabigeena suubana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna li nafsika alayka haqqa naftaada xaq bay kugu leedahay xaqeeda si walaalkay walaashay qurbaha ku nool meeshan waa meel cudurro badan fadlan socodka badi cunto fiican oo dhaayada cun biyo badan cab maanta programkayda wuxuu ku saabsan yahay in carruurteena qurbaha aan ku dhalnay xaqa ay nagu leeyihiin waxaa ka mid ah inaan nasligooda barno nasligooda iyo meeshay ka imaadeen inaan barno in Soomaalinimada aan barno in muslimnimada aan barno badanaa carruurteena inay Soomaaliyiin in kala shaki baa ugu jiro taas iyada waxaan ku beesgaraynay mar dhaw idiin sheegi doonaa laakiin nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ta'allamuu min ansaabikum ma tasiluuna bi arhamakum fa inna silata ar-rahimi mahabbatun fil ahli mathratun fil mali mansa'atun fil athar wuxuu yiri waxaad barataan nasligiina iyo meeshaad ka imaadeen yacni barta si qaraabadiinaad u xariirisaan iyo dadka iyo nasligaada meelaad ka imaadsaas u baratid ta'allamuu min ansaabikum ma tasiluuna bi arhamakum sababtoo qaraabadoo la xariiriyey kalgacayl iyo jacayl baa ka dhasha qaraabadoo la xariiriya maalka ayaa ku ziyaada qaraabadoo la xariiriya cimriga ayaa lagu kordhiyay wiiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam walaalaha sharaftada arday ka mid ah ayaan hadda ka hor waxaan mataqaanaa ku iri dad Soomaali baa tihiin Soomaaliga waa inaad barataan markaan English kula hadla marka koobaad ayaan haddana af Soomaali kula hadlaa anigoo runtii isdhahaya bal carruurtan waa Soomaalinimada ka dhaadhici marka arday mid ka mid ahaa oo ilaa 15 jira ayaa soo booday wuxuu yiri macallin ani Soomaali mihi markaasaan ku iri Soomaali seeda ku ahayn marka wuxuu ku yiri markaasaan ku yiri maxaa tahay haddaad Soomaali ahayn waxaana u yiri ani ogaadeeniyaan ka soo joodaanin ogaadeeniyaan markaas waxaan ku yiri dadka ogaadeeniya degan dadka jirkooda iyo markaad fiirisid yacni maqaarkooda iyo luuqadooda dad Soomaali ah Soomaha wuxuu yiri waa dad ogaadeeniya marka waxaan u malaynayaa si qalad baad u faahantay wiilka waxay noqotay walaalaha sharaftan inaan la fariiso oo runtii aan ka dhaadhiciyo arrintii markaan carruurteen waad arkaysaan yacni waxa weeye qalad bay fahmeen markaan hadda maanta oo kale doorashaa jirto dalkeena Soomaaliya doorashaa ka jirto carruurta xataa inay la socdaan oo telefishinka af Soomaaliga loo shido oo la socdaan muhiim weeye wiilka marka waxaan ku iri dhegeyso dadka Kenya jooga NFD la yiraahdo jirkooda ma fiirsaan ku yiri jirkooda muxuu yahay marka jirkooda waa jir Soomaali weeye luqadda ay ku hadlaan waa luqad Soomaali ah haye dadka Djibouti jooga maxay yihiin ku ira dadkaas waa dad Soomaali ah jirkooda waa Soomaali dadka Soomaali degan waa saas markaan meesha deganta gobolka deganta waa gobolkaad ka imaado ogaadeen la yiraahdo laakiin dadka degan maanta ka bacdi waxaad u garanaysaa waa dad Soomaali ah marka wiilka adaa 10 daqiiqo oo kale iga qaatay inaan wixii fahansiiyo marka waad arkaysaan yani meeshaas ayada cunugaasi yani qalad baa laga fahansiiyey marka gobolaysigaada dhimale iska hayso ama Puntland ka imaaw ama Somaliland ka imaaw ama Djibouti ka imaaw NFD ka imaaw kililka shanaad ka imaaw mataqaanaa meel kasta ka imaaw laakiin waxaa tahay qof Soomaali ah oo af Soomaali ku hadlo oo nasli Soomaali baad marka walaalaha sharafta leh maanta ani waxaan ka hadlay waxa weeye war carruurteena barno تعلموا من أنصابكم ما تصلون بأرحامكم
carruurtaada inay Soomaali yihiin oo dad muslimiin yihiin waa inaa bartid. kow waa muslimiin, laba waa Soomaali. ka bacdina markaad gobol ka imaado hadduu rabo meeshaas ka imaadi mataqaana bar haddaa rabtid. marka walaalaha sharafta leh carruurteenna aan barno mataqaan meeshay ka imaadeen nasligooda iyo soomaalinimada inaan bartan wey. intaa markaan ka gudbo anta doorashaa jirto allah subxana wataala waxaan ka baryaynaa qofkii daacadda inuu soo bixiyo walaalaha sharafta leh khaasatan runtii kolley ummaddeena soomaali badana qofka ay taageersan yihiin waxaa weeye waa oo la og yahay si loo badiyay waa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo governmentigiisa. waana u ducoynaya ilaahay subxaana watacaala inuu soo saaro. kolley maanta hadday hal cod ahaan lahayd iyo qof iyo cod hadday ahaan lahayd automatic wuu soo bixi lahaa. laakiin dee meeshii waxaa jiro xoogaygo waxaa jira yacni qabiiladiia meesha ku jiro weli. markaan bal maanta aan u ducoyno ilaahay subxana wataala ummadda soomaaliya ha ka farxiyo. meelaha barkooda ani ku yar khilaafsana cabdullaahi farmaajo iyo dowladdiisa waxaa ka mid ah inay axmaaro soo dhoweeyeen runtii oo dalka axmaaro soo geliyeen oo dadkii kenya joogay jubbaland waxyaalahay ku ceyrsanaan ay ka mid tahay kenya ay soo dhoweysay. runtii arrintaas idaanu waa u khilaafsana sababtoo kenya dad badan oo soomaaliya degan waana dad Soomaali oo mataqaana dadka Soomaali ka soo qaxay meesha degan yihiin. hanti badan aan ku leenahay, baarlamaankan ku jirnaa, madaaris badan aan ku leenahay, diinteena aan ku dhaqaalaysanaa. Kenya iyo Ethiopia teeba faa'iido naga soo gashaa. waxyaalahan cabdullaahi farmaajo dowladdiisa aan mataqaana aan ku diidsanahay kamid tahay aan ku khilaafsanahay. laakiin markii guud ahaan la eego dowladdan meel ay geysay dadkeena Soomaali iyo dadkeenna runtii waa meel dheer weeye. wax badan oo u dhiman yihiin. marka Allah subxaana wataala u baryaynaa walaalaha sharafta leh. marka fadlan hadda waxaan kusoo gabagabeynaa xadiidka nabi sallallahu alayhi wasallam tacallamuu min ansaabikum maa tasiluuna bi arxaamakum. carruurteena inay Soomaali yihiin, muslimiin yihiin waa inaan barno, qaraabadooda waa inaan barno. carruur barkooda waxaa jira runtii aanan aqooninba xataa aabbahood kuu dugsi aan la kulmay aabbihii ma yaqaan. war walaalkay carruurta ma aabbaha bar oo awowgaa bar oo nasligooda bar. waxaan waa cibaado waay, waa xaquuqda aan ka hadlo oo carruurta aan ka duudsiinay ka mid tahay. beri xaggay aadayaan carruurtan haddaan luuqadaan la barin oo Soomaaliga badan nasligooda la barin. beri waxay kuu soo baxayaan cunug Amerikaan oo British ah oo waxaa kuu soo baxay European ama Australian. marka walaalaha sharafta carruurteena aan barno nasliga email ay ka imaanay Soomaalinimada aan barno. waxaan leenahay Soomaaliya guul, Soomaaliya ha mataqaana ha noolaato, dalkeena ha hormaro, dadkeenana ha hormareena. ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqda allahna waafaji. kuwa dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda ka fikira allah naga dhiga, tawxiidka kuwa ku dhinta allah naga dhiga. intaasaan kusoo koobayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.